كورا رفاض يو محن كورا بروسيس دير بو سو غشي maanta anigu waxay farxad ah anigu laba qodob ma ka hadlayaa hadal badan ima yaalo maanta in badan bay fooshin haysay maanta waa xilligii maxaan ku dhahaa foosha maxaan ku dhahaa ilaahay uu soo dhaweeyay dhagax dhigii miisaaniyadii sanadeedkana noogu jiro rugta kutubta Boorama cid walba hawsha processka si guud baan ugu mahadnaqaynaa ugu horeeyo wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta wasiirada maaliyadda sabsam oo miisaaniyada sanadeedkii ku hubsatay cid walba oo ma aragtay hawsha maxaan ku dhahaa nala garab joogtay gobol ahaan iyo degmo ahaan iyo maamul ahaanba waxaan aad ugu mahadnaqaynaa maxaan ku dhahaa maanta waa guushii iyo midhadhalkii iyo maxaan ku dhahaa in maanta dhagax dhigii qof walba wax ku darsaday soo bilownay 2010kii qaarkiin iyo qaarkeen arki doona qaarkood way la yaabi jireen markaan sheegi jirnay riyada ah in Boorama ay u baahan tahay maktabad dadka u furan oo u bilaasha oo dadku leeyihiin oo dan guuda hase ahaatee wixii ragu kaco rabbina aqbalo rumooba wata rumowday waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba u mahadnaqaynaa mas'uuliyiinta dawladda oo gacan laxaad la ka geystay lana u soo wareejiyay maalin walba waa la soo weerarayaa maalin walba waxa la doonayaa in wax laga dhisto ama cid qaadata gaarihi annagu meesha waxaan u haynaa waa danta guud ee reer Boorama danta guud ayaan u haynaa jaamacadda waxaan doonaynaa inaan ka dhisno jaamacadda caafimaadka ee magaalada Boorama ay lahaan lahayd ama Soomaaliland ba ay lahaan lahayd maadaama ay hortay ayna dhicin maayir ka horeeyo oo dhul ku deeqa qoraal halka inuu bixiyay oo ku wareejiyo dhalinyarta mar walba taas waxay cadeynaysaa ilaa 60 ilaa maanta iyaduna Boorama ayna helin babligley bariir ay dhalinyartu leeyihiin wax qabadka aanu la diyaar ka nahay dhalinyarta anagoo ka duulayna siyaasadda xisbiga kulmiye iyo dawladda aanu dhagax dhigaynaa waa library-gii ugu horeeyay degmadanu yeelato gobolkan uu yeesho sidoo kale oo public library waxa sharafta iska leh dhalinyarada aadko oo runtii u dhabraaday oo nus saacadooga ayagoo iskuul ku jira iyagoo jaamaca ku jira ka bixin jiray kirada oo marba wasiir uu la tagi jiro wasiirka uu la guud ka mid yahay ragii la bixiyay kirooyinka oo marba qof uu la tagi jiro oo jirina la bixiyo intii tabartooda ka badan runtii dhalinyarada dadaashay maanta kutubta ay hayaan ma aha kutub ay qool qaadi karayso noqon doonto public library kutubta la dhigi doono hadii la yiraahdo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leenahay dadaalka loo galay in maanta dhagax dhiga uu soo gaaro public library-gu wax badan baan kala soconay intii ku soo dadaashay ee xukuumadda ahayd iyo intii mas'uuliyiinta gobolka ahayd iyo intii bulshada ahayd arrinka halka soo gaarsiisayba waxaan leenahay jazaakumullahu khayr inaan maanta joogo goobtii ay ka dhismi lahayd Boorama Public Library oo noqon doona dhismo taariikhi ah oo aqoonta ay gobolka Awdal iyo Boorama ay taariikhda ku leedahay qayb weyn ka qaadan doona haddii la ka dhigo dhismahan iminka aynu joogno aynu dhagax dhigi doono library-ga waxaa hore amar ku bixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland in loo sameeyo Boorama oo magaalada taariikhda leh oo aan cimriga inta leeyahay taariikhda inta leeyahay waxbarasho ay leedahay aan marna nasiib u helin inay yeelato public library madaxweynaha amar ku bixiyay aniga wasiir ahaan waxa la xil saaray in dhulkii laga dhigi lahaa oo library-ga oo dhul ku filan oo ku dhow goobaha waxbarashada iyo jaamacadaha loo asteeyo marka waxa halkan imika aynu joogno waxa lahaan jirtay wasaaradda beeraha waxa muddo imika 10 sano ka badan madaxweyne Daahir Yaale ka inuu ku wareejiyay jaamacadda Amuud dhulkii nasiib darro wali jaamacadii si fiican uga hawlgelin dad badan oo shacab ah degan dhulkuna waa dhul ballaaran marka qayb ahaan dhulka ka mid ah ayaan u asteynay inay noqoto halkii xarunta laga aasaasi lahaa maktabadda caamka ah ee Boorama waxa dhismahan noqon doona sida dhisaankan dambe ka muuqata dhisme hal dabaqa oo ballaaran dhulkiisuna wuxuu noqon doonaa